waxaa qaar ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka ay aad u hadalhayaan maalmahan arrin ka dhacday dalkaas oo dhif iyo naadir ah. Nin u dhashay Mareykanka ayaa lacag 5 milyan oo dollar ah dhaxal ahaan uga tagay ay u lahaa si loogu xanaaneeyo. Haddaba maxay tahay sababta aygan loo siiyay lacagta intaas la eg? Barnaamijkeena xogdoon ayaan mowduucan maanta kuugu falaqayn doona ama aan ku faahfaahin doonaa. Fadlan intaan barnaamijka guda galin waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. Ku soo dhawow barnaamijka oo faahfaahsan. hagaag bal iminkan aan barnaamijkeen hore u galno. Ninka dhintay oo lagu magacaabi jiray Bill Doris ayaa geeriyooday sanadkii hore, waxaana isaga iyo aygiisuba ay ku wada noolaayeen magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka. Warqad uu qoray ayuu ku sheegay in aygiisa uu uga tagay lacag dhan 5 milyan oo dollar. Ninka dhintay oo lagu magacaabi jiray Bill Doris ayaa ayga uga tagay haweeney kale oo lagu magacaabo Martha Burton oo ay saaxiibo ahaayeen. Warqadda dardaaranka ayuu ku sharaxay sida iyo cidda ay tahay in la siiyo hantidiisa. Bill Doris ayay da'diisu ahayd 84 sano jir kolkuu geeriyoonayay, wuxuuna horay u sheegay in sababta lacagta uu uga tagay ayga ay tahay sidii wax loogu qaban lahaa baahiyaha ayga sida cuntadiisa, daaweyntiisa iyo dadka u adeegaya, inkastoo haweeneyda uu kala dardaaramay ay gacanta ku hayso. Mrs. Burton oo ah haweeneyda hadda mas'uulka ka ah ayga ayaa sheegtay in Bill Doris uu aad u jeclaa aygiisa, waxayna intaas ku dartay in aysan suurtagal ahayn in lacagtaas ay iyada iyo ayguba wada isticmaali karaan, balse ay isku dayi doonto. lacagta ayaa la sheegay inay gacanta ku hayaan qolyaha qaabilsan xanaanada xoolaha, waxaana mar walba haweeneyda gacanta ku haysa ayga loo soo diri doonaa hadba lacagta uu aygu u baahan yahay iyo haddii ay jiraan qarashaad kale oo ay u adeegsatay xanaanaynta ayga. Inkastoo milkiyadda ayga uu markii hore ka hor inta uusan dhiman Bill ku wareejiyay haweeneyda, haddana Mrs. Burton waxay hadda si toos ah ula wareegtay ama u dhaxlaysaa ayga oo la aaminsan yahay in lacagtii uu ku noolaan lahaa in ka badan uga tagay ninkii lahaa. Ilaa iyo hadda ma cadda in ninka dhintay uu lahaa qoys ama ay jireen lacago kale oo aan ahayn 5 milyan ee dollar oo uu dhaxal ahaan uga tagay. Arrintan ayaa ka fajacisay dad badan oo anigu aan ka mid ahay oo ku nool dunida dacaladeeda, waxayna si gaar ah ula yaabeen sida lacagta intaan la eg uu dhaxal ahaan u siiyay ayga oo dad badani laga yaabay inaysan waxtarba u arkin. Waxaase dadka qaar ay ku doodayaan in lacagtaas ay sidoo kale ahayd ama ay mudneed in la sadaqeeyo oo la siiyo dad badan oo aan awoodin wax ay cunaan xilligan oo dunida aafeeyay cudurka coronavirus. Intii aan barnaamijka diyaarinayay waxaan soo xasuustay maamaadii Soomaaliyeed ee ahayd laba bariday kala warla. Runtii waxaan dhihi karnaa waa kaafiya kala dheeri. Adduunka waxa ku nool sida la sheego 7 bilyan in ka badan oo dad ayaa dunida ku nool. waxaa la sheegaa 7 bilyan 4 meelood hal meel maalintii waxaa la yiraahdaa waxa soo gala waxay ka yar tahay $2 ayay ka yar yihiin ayaa la yiraahdaa. bal u fiirso, ninna aygiisa ayuu dhaxal ahaan wuxuu uga tagayaa 5 milyan oo dollar. ninna waxaa laga yaabaa awlaadda uu dhalay in caawa waxii ay jadiinka marin lahaayeen uusan meel ku ogeyn. runtii waa nin adduunyo u kuftay oo dabcan fahmi waayey meesha uu ku bixinayo iyo cidda uu siinayo, iyo nin dunidii ay ka carartay oo dabcan nasiibkiisa bursanaya calafkiisa. waxa xusid mudan oo iga araar ah ayga iyo xayawaano badan diinteenna macaan maqaam sare ayuu u yeeshay. nebiga sallallahu alayhi wasallam si qaas ah ayga ayuu uga dardaarmay ama eeyaha ayuu uga dardaarmay. Bill lacagtaas uu siiyay ayga wuu mudnaa dabcan, aygu wuuna mudan yahay in la xanaaneeyo, la dabcan kafaalaqaadkiisana laga fikiro, laakiin xaddigaas in ka yar ayuu mudan yahay ayaan dhihi lahaa aygu. waxaa jira dad badan oo dunida daafaheeda jooga oo waxay xirtaan, meelay hoydaan iyo dabcan waxa ay dabka ku shitaanba aysan haysan. marka kuwa ayaa mudnaa. inkastoo ninkan markaan akhriyay taariikhdiisa uu yahay nin dabcan Christian ah oo aan Muslim ahayn, misna caqliga saliimka iyo insaaniyadda marka lagu fiirsho waxaan dhihi lahaa ama aan dhihi karnaaba muusan asiibin, way ka hoos baxday.
intaasna waa fikirkayga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu muuqaalku ku cajabiyo inaad videoga like dhahday si uu bulsho badan u gaaro. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid iyaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. waad ku mahadsan tahay mar kale la joogaaga.